بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دمانتين انت كستو هالكن فرصة هشين انك دعوتو موضوعا آدك وحنونك بدن dadka la haybsooco dhowr magac oo mar waxay koranayaan dadka laga tirada badan yahay oo beenadeel ilaa cidina kama tiro badnee halkan oo kaliya ka hadlaynay tuulo kasta oo Soomaaliyeed qof baa ka jooga ama laba ka jooga ama shan baa ka joogta degmo kasta oo Soomaali degan tahay marka waa gaf bay la tahay inaynu raahno laga tiro badan yahay mushkiladda haysata maaha tiro badnaan laga tiro badan yahay mushkiladda haysata waxa weeye quursi iyo habsooc joogta oo qorraxdii soo baxdaba la socdo qorraxdii dhacaysana la dhaca oo lagu hayo mujtamacaas oo aad la yaabayso sidii ku nool yihiinba marka waxaan xasuustaa markii aanu dadkii Hargeysa ku dhashay baan ahaa waan garanayaa oo caruurnimadeedii halkan fooqa ina faarax joome ku yaalo wadada waqooyi ka xigta ee ilaa dhakhtarka tagtay xaggana ilaa New Hargeysa iyo dawladda hoose ka tagta fooqa ina faarax joome ilaa dhinacan bidix daaraha ka xiga wajahada ku beegan xaafadaas ay horta deganayeen waxay lahaayeen shaqooyinkooda gaarka ah bay lahaayeen oo dhariyahay sameyn jireen oo way ugaarsan jireen oo ra'iislayaal bay ahaayeen oo birtay tumi jireen oo kabahay tol jireen oo shaqooyin badan bay qaban jireen oo mujtamacu u baahan yahay oo saldhig u ah waxa kamid ahaa ugaarsigii iyo culuntii ugaadha sida aynu dabeecadaha dadka u kala naqaano ayay u yaqaaneen ugaadha iyo dabeecadaheeda iyo siday u dhaqantay iyo siday tahay iyo siday u kala feejigan tahay iyo siday u kala digtoon tahay iyo afkii raacayay iyo erey bixintii raacaysay iyo suugaantii raacaysay iyo heesaheedii xeeldheerida aqoonta ay lahaayeen waxa jiray qalabka ay ku ugaarsanayaan mariid waxa la yiraahdo marin jireen oo suna waabeya geed waabeya la yiraahdo laga sameyn jiray marka xeeldheerida aqoontoodu ilaahay heerka ay gaarsiisnayd aan ku soo noqdo xaafadaasi deganaayeen deegaanka ay Hargeysa ku ahaayeen iyo halkay deganaayeen baad ka garanaysaa mujtamaca waxay ka ahaayeen aqaladoodu aqalada dadkay la mid ahaayeen aqal Soomaali waa lagu jiray daaramay jirin waxday jireen wax yar baan inta shacabkii yar oo kale ayaa soo raacisay aqalka ugu weyn aqal laba daryaala ayuu ahaa wixii soo raacay aqalka laba daryaala wuxuu ahaa si dadkaasi u kala sarreeyeen mushraaq leeyahay roob ka celiya gambisihii iyo buulkii yaraa iyo darajooyin caynkaasi kala intaba way lahaayeen oo dadkay kala sinaayeen 58 baa la raray daami baa la geeyay maanta xaaladda daami ay ku sugan tahayna waynu arkaynaa dadkii ay aqal Soomaaliyada la wadaageen ee magaalada deganaa waa dadka fooqaqa iyo guryaha waaweyn iyo markii aqal Soomaaliyada la raray la yiri ku farxin magaalada centerkeedii guryo laba maqsin oo sakada ah oo dhaadheer ayaa ku xigay labadii maqsin baa saddex noqday saddexdii baa afar noqday afartii baa guri bangala ah noqday dabeedna fooqana xigay intaas oo qaybood oo la soo maray ayaanay waxba ku lahayn biritan waxa laga yaabaa inay u xigto in lagu yiraahdo magaalada centerkeedii baa taaliin oo farxuntiina guura oo la raro hadii loo helo meel la geeyo marka isbedelka dhacay kaasoo ahaa Hargeysa ku dhacay ee ay ka qatan yihiin ee ay iyagu sii degayeen kolba inta uu dalku hore u maraba inta ay dawladnimadu dhisantaba inta ay hay'adaha dawladeed dhismaanba iyaguna way dhismayaan oo waxbay ku leeyihiin inta uu mujtamacu sii reeroobaba inta ay qabyaaladu sii xoogeysataba halka iyagu ay ku dilan yihiin ee quursiga iyo wax waliba kaga yimaadeen waa reernimada iyo qabiilka taana hoos bay ugu sii dhacayaan oo waa dhibaatada haysata
oo markaad garaadka dadka eegto 60kii ilaa maanta sidaasuu isu soo bedelayay oo maalinba wax ay uga sii dhacayeen. waxyaabaha inagaga maqan aynu ku saaganay suugaan baa jirta, af baa jira aan af Soomaaliga ahayn oo ay ku hadlaan oo ay isku afkartaan oo ay wadaagaan oo sii baaba'ayo oo u baahan badbaadin. erebixin suugaaneed baa jirta oo matalan markaynu culunta ugaadha ka hadlayno iyo ugaadhsiga oo marna ugaadhaynu ka hadlaynaayo oo mawduucu uu noqonayo garanuugtii iyo deeradii iyo cawshii iyo kuwaas, marna uu noqonayo ugaadhsigii oo matalan markaad dadkeena eegto qolooyinkan heesaha curiya alxaanta sameeya badaha maansada oo dhan waa la liximay oo dhaantadii baad arkaysaayo baarcadii baad arkaysaayo waxaad arkaysaa maqalay warlaayo waxaad arkaysaa jiiftadii iyo gabaygii iyo mid aan la liximini kuma jiro iyo geeraarkii. laakiin tii baddii maanso ee u gaarka ahayd ugaadha oo kale matalan nin la odhan jiray xabad ibraahim dhabandaran naxariistii jannaalahaas iyo jabuuti ku dhintay markuu ka qaxay Hargeysa 88kii mar dambe dhintay. irtideeda jabuuti ay barnaamij ka duubtay ku saabsan ugaadha iyo ugaadhsiga ayaa marka uu ka sheekeynayo aad garanaysaa afka iyo erebixinta halkaa ku jirta. waxyaabaha uu xusaya waxaa ka mid a heesta ugaadha marka loo baxayo ugaadhsiga iyo marka laga soo hooyanayo ee wixii lasoo helayay lasoo helay ee lagu soo guulaystay maanyaa la yidhaah luuq gaaray leedahay. laakiin tii ma soo gasho alxaantan iminka aynu dhegaysano. matalan erebixinta inagaga maqan mujtamaca iyo nolosha uu ku jiro matalan markaynu qaybta ugaadhsiga soo qaadano oo kale xabad ibraahim ereyga koox waxaynu u naqaanaa dhowr qof oo meel ama kubad ciyaaraya ama aynu koox u naqaanaa. xayn adhiyaa la yidhaahdaa, raxan libaaxyaa baa la odhanayaa, matalan goosan adhiya baa la odhanayaa. waa iska kooxun. laakiin tii marka xabad uu u leexdo qaybta ugaadhsiga bad kalaad gelaysaa markaas oo matalan markuu deerada ka sheekeynayo in yaroo deera ah oo kooxa waxaa la odhanayaa wadar deera ah. markay garanuug noqotay in yaroo kooxa noqoto dan garanuuga. markay cawl noqotay in yaroo kooxa noqoto goosin cawla. marka ay gorayo noqoto ee ay waxoogaa noqoto gawar goraya. marka ay biciid noqoto ee ay in yaroo xayna noqoto yahaab biciida. hadday sii yaraato yahaab gaabbay sii noqonaysaa. sidaasuu hodan u yahay oo dabeedna kumaynaan koobnaaneen ereygan kooxe kuwa faraha badan labaynu qaadan lahayn oo maanta sii dhimanayo laga yaabo inaynaan waxba ka haynin. anu mar baan ka qoray qaybtii waxaan qoray uun ugaadhsiga qaybtii ugaadha ayuun baan ka qoray xabad. waxay lahaayeen dad mujtamacan qiimo ku lahaa ilaa ay maantadaana kule inkastoo ay dhinteen naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo. dadkaa waxaa ka dhashay dee xuseen aw faarax dubed baa ka dhashay, dirawal ka ahaan jiray dowladda hoose ee Hargeysa. mafrishadiisa kuwa ugu qiimaha badan magaaladan Hargeysa ayay ahaayeen. dalcadda national cinemaha marka la korayo biyo dhacay la tegayo xoogaa la fuulo dhinaca bidixda kaa qabanayay. dadkii xuseen mafrishkiisaa fadhiyi jiray karaamada lahaa naxariistii jannaalahaas iyo yuusuf xaaji aadan iyo baa ka mid ahaa. waxaa ka mid ah axmed yuusuf ducaalo kanada ku nool. caruur baan ahaa iskuulkaa biyo dhacay baan ku jiro tegi jiray waan sii hormari jiray. marmarka qaarkood waabayna adeegsan jireen oo waxba bay noo dirdiran jireen. xuseen mujtamaca qiimahaasu ku lahaa. cidina kumay odhan jirin reer hebel baa tahay. waxaynugu soo maray cumar duulaayna soo maray naxariistii jannaalahaas iyo maalmahaanu xamar joognay. cumar dadka xoroobay buu ahaa. wuxuu ka sheekeynaya isagoo maalin burco jooga oo nin ku yidhi midgaan oo dabeedna malaa uu dharbaaxay ninkii soo ashkateeyey. penal codeka xadhig bay ahayd. dabeedna ninkii saajinka ahaa ee war maxaad ninka ma dharbaaxday? haa waan dharbaaxay. maxaad u dharbaaxdo? midgaan buu igu yidhi. qalinkiiba abu dhigo markaasuu ku yidhi miyaad ahayn
cumarna wuxuu ku yidhi bal maad nus saaca noqotid inaad u dulqaato runtu halkay ku jirtaana waa halkaasoo waxa dadkani intaasoo sannadood ay u dulqaadanayaan inagu nus saacahaas ayaad sheegaysaa ee daqiiqaad ayaynaan karayn maxamed saleebaan tubaac baa jiray macallinkii madrasadii murtida iyo madadaalada ee maada cabdilaahi cabdi shube ayaa jiray xasan diiriyaa jiray dad badan oo caynkaasoo mujtamaca qiimo ku leh ayaa dadkan ka dhashay dhibtan haysataa waxay u baahan tahay cilmi baadhisteeda oo welibana mid qoto dheer ayay u baahan tahay halka ka timid iyo siday ku dhalatay waxay innaga inoo muuqda uun inay meheradihii ay hayeen ay ka dhalatay ee mujtamacani u baahnaa kabaturista ahaa raysla ahaa tumaalka ahaa birtumida ahaa waxaynkaas oo maanta aan gacanba ugu jirin waad arkaysa raislayaashii oo ay dad leeyihiin mulkiilayaali oo iyaguna ay ka shaqeeyaan iyaguna magaxumadii iyo dhibtii ay qaateen dadkan kalena macaashkii iyo dhaaftii ay qaateen mujtamac aada u dulman oo laynagu ciqaabi doono ilaahay aynu ka baryayno inuu inoo naxariisto innagana aynu ku qasbanay maanta inaynu aragtidan aynu dadkan ka qabno inaynu iska bedelo dadka qaar baa had iyo goraale ku dacwooda saami qaybsi iyo waxaynkaasa iyo dadkan dhibta haysataa anugu sidaan isleeyahay anoo golo ka fuulaya oo aan hoos ugu daadegin oo aan in badan baadhin waxaan isleeyahay 2 meelood bay u baahan yihiin inay ka xoroobaan waa aqoon iyo waxbarasho qaybta kalena waa dhaqaale waxaa loo baahan yahay in culayska la saaro labadaas inay dadkani wax bartaan oo ay iskuullada tagaan oo fursadihii ay wax ku baran lahaayeen iskuulladii in loo dhiso in barnaamijyo u gaara iyaga in loo sameeyo oo dowladda dhexena ku tala gasho dowladda hoosena ku tala gasho dabeedna ilihii dhaqaaluhu ay yimaadaan oo ay dhaqaale ahaan u koraan oo ay uga kacaan halkan ay joogaan nin aqoon leh oo digrigiisa sita oo wax kala garanaya oo cidina nin hanti haysta cidina macayso cidina wax ku odhan mayso isaguna meel hoose oo lagu liido ma joogo aqoon ahaanna uma joogo dhaqaale ahaanna uma joogo haddii goraale waxaad maqlaysaa dadka mujtamaca ka dhashay ee awoodda u helay inay mikrofoonka soo gaadhaan ama ay iftiinka arkaan ee ka soo baxay xaafadaha mugdiga ku jira ee soo gaadhay hudheeladan marmarka cadiyaale leerhka cadi ka shidmayo haddii goraale dhawaaqoodu wuxuu badan yahay saami qaybsi dadkan baahidooda koowaad saami qaybsi maaha baahidooda koowaad waxa weeye nolosha xaaladda dhaqaale ay ku sugan yihiin haddaan wax iska bedelin dabargo' bay ku dhow yihiin haddaan mujtamaca aanay soo dhexgelin oo aan la soo dhexgelin oo marka hore iyagu aanay doonin inay ka diga rogtaan halkan ay joogaan dabeedna aanay uga baahan dadka intiisa kale inay ku caawiyaan diga rogashadaas iyo hinqashadaa ay ka hinqanayaan goobtaa xunay ay yaaliin iyo mafhuumka iyo garashada dadka oo aynu olole ku qaadno inaynu aragtida dadka bedelo iyo attitude-ka ay ka qabaan mujtamacan waxay la tahay innagana ciqaabtaas iyo dhibtaasi way nagu sii socon doontaa iyagana nolol xumadaasi way ku sii soconaysaa maaha in si fudud loo yidhaahdo aynu iska guursanayo aynu sida noqonayo aynu sida noqono horta badbaadaynu u baahanay waxaynu u baahanay dowladda hoose iyo dowladda dhexe inay dadkan xeerar u sameeyaan oo horta waxooda loo ilaaliyo intaasoo qof baa dibadda ka timid oo ku soo qaxday dalkan oo meheradoodii gacanta ku dhigtay oo maalin kastoo ra'iisle nin ajnabi furtaba qoys dadkaa ka mid a ayaa dabku ka baktiya ama qoysas dadkaa ka mid a ayaa dabku ka baktiyayaan la geray wixii aynaan garanayn inay cidi u timaado oo dabeedna inaga caawiso dee haddaynu dayax gacmeed kicinayno
laakiin tii ninkan miskiinka ah ra'iislihiisi iyo birtumidiisi qaabkii korriinkeena dhaqan dhaqaale ayaa isbedelaya noloshii miyigu saaxaddii way ka baxaysaa dadkan birta tumaya waxay la xidhiidheen nolosha reer miyiga haan u tumaa toore u tumaa wax kale u tumaa maanta wixii ay raayay biraha ay ku tumayeenna iskaraabiyo waxaan la garanayn baa loo urursaday oo meel ay ka soo qaadaan kaabaan yar oo ay ama toore ama wax ka sameeyaan ma haystaan haan haw tegaysaa oo jingadii ay ka samayn jireen laga samaynayaana ma jirto ra'iislayaashii waa tan oo weerar baa lagu soo qaado dad ajnabi ah gacanta ku dhigay birtumidii waa tan ra'iislayaashii waa kuwan dabadeedna cid aliyaale cid ka war haysaana ma jirto cid aliyaale cid u ilaalinaysaana ma jirto waxaad moodaa intoodii ilbaxday ee kacdayna inay ku yar dawaqsan yihiin saami qaybsi ama qolooyinkan ay la joogaan uun la daaq tagaan xaqiiqaduna waxay tahay haddaynu maanta nidhaahno baarlamaanka somaliland siduu u dhan yahay beeshaasu ka kooban yahay wax noloshooda iska bedelayaa ma jiraan cidda meeshaa gashaa ayuunbaa ku danaysan doontaa xilalkaa ay qabatay sida imikaba in badanoo haysaa ay ugu danaysato aanay xafiisyadu u ahayn wax dan guud lagaga shaqeeya ama dadka loogu shaqeeyo dalka laakiin tii qaar badanoo ka mid ay iska noqdeen dabinno ay daddigteenoo ay ku shaqaystaan oo xaalad ammaan darro ah iyo xaalad nabadgelyo darro ah iyo xaalad xaq darro ah iyo xaalad cadaalad darro ah mujtamacan dhexdiisa ku abuurayoo bahal doqonahoo haddaad sii dayso aan waxba ka noqdeen mujtamaca markuu suuqa socdo ayaa kursigaa yaruu fadhiya ummadda leedahay ee ummadda ka dhaxeeya ee ugu adeegi layahay ee uu xuquuqdii kuwaa ku ilaalinayahay dulman ee dalka u dhashay marka sidaas bay noqonaysaa ciddii kale ee tiraahdaa ku celcelisa saamigaa ku celcelisa waxa la yaalo wax uu saamigaasi ka bedelayaa nolosha asaasiga ee mujtamacaas ma jirto waxaan hadal ku soo ururinayaa dadaal baa ayna faran ah inaynu bedelo aragtideenna iyo sida aynu mujtamacan u arkayno waxaynu nafteenna la jecelahay waa inaynu dadkan la jeclaana dadkani waa inay iyaguna doonaan sidan ay ku nool yihiin si soconaysaa inaanay ahayn ee ay tahay xaaladdaasi inay isbedesho oo ay iyaguna ka gurmadaan oo ay ka kacaan innaguna aynu ku caawinno inay boodh ka kacaan oo aynu quursigaa joogtada ah qofka bani aadamka markaad ku celceliso gunbaa tahay dhibteeda ayay ku yeelanaysaa qofka garaadkiisa iyo korriinkiisa iyo garashadiisa marka hadalka waxaan kasoo ururinayaa cuqubooyinkeena haysta ayay ka mid yihiin mujtamacaasi waa qeyb ka mida nolosheenna waa qeyb sugaanteenna ka mid a waa qeyb dhaqankeenna ka mid a waa qeyb mahuraanka nolosheenna ka mid ah oo aynaan ka maarmin iyaguna aanay naga maarmin sidaa daraaddeed ayaan dadka ku baraarujinaya oo nagu baaqayaa inay bedelaan aragtidooda inay bedelaan sida ay ula falgelayaan dadkaana waxaan ku boorinayaa iyaguna inay ka kacaan ka gurmadaan xaaladdii ku jiraan laysu yimaado la wada tashado oo xalka la wada raadiyo laakiin tii waxaan isleeyahay aqoon iyo dhaqaale hadday meesha yimaadaan wax badan ayaa isbedelaya